sheekadii jacaylka ee ka bilaamatay dukaanka kuna dhammaan doonta arooska ee adduunyada oo dhammi sugayso. Sheekadan waxay u dhaxaysaa ciyaaryahanka weyn ee Cristiano Ronaldo iyo gabadha ay wada neel yihiin ee Georgina Rodriguez. Ma qiyaasi kartaa gabadh ka shaqaynaysay dukaan dhar lagu iibiyo ay maalin la kulanta ciyaaryahanka ugu weyn dunida, kaas oo boqolaal qof ay maalin kasta doonayaan inay la kulmaan ama sawirro la galaan. Kulankaas oo isu beddelay jacayl soconaya sannado badan. Tani maaha sheeko filim laga sameeyey, waa sheekada dhabta ah Cristiano Ronaldo iyo Georgina Rodriguez. Sannadkii 2016, Georgina waxay ahayd gabadh da'yar oo ka shaqaysa dukaan ku yaallay magaalada Madrid. Nolosheedu waxay ahayd mid caadi ah, waxay shaqayn jirtay saacado badan, waxay ku riyoonaysay mustaqbal wanaagsan, balse ma ay ogeyn in maalin kaliya ay nolosheedu gebi ahaanba isbedeli doonto. Maalinta ka mida maalmahaas, albaabka dukaanka waxaa soo galay ciyaaryahanka weyn ee Cristiano Ronaldo oo markaas u ciyaarayay kooxda Real Madrid ee dalka Spain, kana mid ahaa ciyaaryahanada ugu caansan caalamka kubadda cagta. Georgina markii ugu horreysay indhaheeda ku dhufatay Ronaldo, iyadu waxay sheegtay in qalbigeedu si degdeg ah u garaacay isla markaasina uu dareen galay. Ronaldo isaguna waxa uu sheegay in quruxdeeda, degganaanteeda, edebteeda ay markiiba soo jiiteen. Kulankoodii ugu horreeyay waxa uu noqday bilowga xiriir cusub. Markii hore waxay isku dayeen inay xiriirkooda qariyaan si aan warbaahintu ogaanin. Waxay bilaabeen inay si tartiib tartiib ah isku bartaan. Waxay ogaadeen in wax badan ay wadaagaan. Wax yar kadib, sawirradooda ayaa soo baxay, waxaana dunidu ogaatay in Ronaldo uu helay qof qalbigiisa taabatay. Markii Georgina nolosha Ronaldo soo gashay, ma aysan ahayn nolol keliya ama saaxiibtiis. Waxay noqotay qof garab taagan mar kasta, iyadoo la joogta waqtiyada ciyaaraha, safarrada iyo xafladaha waaweyn ee ku saabsan kubadda cagta, amaba marka uu booqanayo hoteeladiisa waaweyn ee ku yaalla qaaradda Yurub. Sannadihii xigay, Georgina waxay noqotay wejiga ugu weyn ee qoyska Ronaldo. Sannadkii 2017, waxay soo dhoweeyeen gabadhoodii horreysay ee Alina Martin. Farxadda qoyska ayaa sii korodhay. Georgina sidoo kale waxay daryeel weyn u fidisay carruurta kale ee Ronaldo u dhalay. Dadka taageera Cristiano Ronaldo waxay si joogto ah u arki jireen sawirro muujinaya qoys faraxsan, safarro qurux badan, iyo waqtiyo ay wadaagaan oo si wadajir ay u qaataan. Laakiin noloshu mar walba farxad keliya maaha, oo marmarka qaar murugada ayaa qayb ka ah. Sannadkii 2022, lamaanuhu waxay filayeen inay dhalaan mataano. Taageerayaashu waxay sugayeen warka farxadda leh. Nasiib darro, waxaa dhacday war murugo leh. Wiilka mataanka ahaa wuu geeriyooday xilligii dhalashada, halka gabadhii yareedna ay soo badbaaday isla markaasina ay dunida ku soo biirtay. Ronaldo waxa uu sheegay in tani ahayd xanuunka ugu weyn ee noloshiisa soo mara. Georgina iyaduna waxay sheegtay in jacaylkooda iyo taageerada qoysku ay ka caawiyeen inay ka gudbaan maalmaha adag ee noloshooda. Dhacdadaas waxay sii xoojisay xiriirkooda jacayl ee muddada soo taxnaa. Muddo kadib, markasta oo Ronaldo la weydiiyo guurka, waxa uu si kalsooni leh u sheegayay in Georgina tahay haweeneyda noloshiisa, isla markaasina uu aaminsan yahay in maalin ay isguursan doonaan. Georgina iyada lafteedu marar badan waxay sheegtay inaysan degdegayn, balse ay rumaysan tahay in wax walba ay dhici doonaan wakhtiga ku habboon. Taas waxay noqotay su'aasha malaayiin taageerayaasha Ronaldo ah ay isweydiiyaan: goorma ayay isguursanayaan? Ilaa maanta ma jiro wakhti rasmi ah oo ay ku dhawaaqeen. Ma jirto casuumaad aroos ama war ay xaqiijiyeen oo ku saabsan xilliga ay isguursanayaan. Si kasta ha ahaatee, dadka ku agdhow lamaanahan ayaa marar badan sheegay inay leeyihiin xiriir adag oo deggan, isla markaasina guurku uu yahay arrin waqti sugaya. Waxaa laga yaabaa inuu dhaco sannadkan, sannadka dambe, ama xilli kale oo iyagu ay doorteen, balse cidna ma oga taariikhda saxda ah. Waxa la hubo waa in sheekadoodu ay ka bilaamatay dukaan yar oo ku yaalla Madrid, kuna dambeysay inay noqdaan mid ka mid ah lamaanayaasha adduunka ugu caansan, isla markaasina xiriirkooda aadka loo falanqeeyo. Jacaylkoodu wuxuu soo maray maalmo farxad leh iyo kuwo kale oo murugo leh.
laakiin weli way iskarab taagan yihiin. Waxaa laga yaabaa in maalinta arooskoodu noqoto mid dunida oo dhan indhaha ku hayso, balse ilaa ay iyagu ku dhawaaqaan, wax kasta oo laga sheegayo taariikhda guurkooda waa mala awaal. Waxaa suurtogal ah in maalin aan la garanayn Cristiano Ronaldo uu soo xiran doono suudhka arooska iyo Georgina Rodriguez oo xiran dharka caruusadda, balse waqtigaas waxaa go'aamin doona iyaga oo keliya. Haddii maalintaasi ay timaado, waxay u badan tahay inay noqoto mid ka mid ah aroosyada ugu hadalhaynta badan taariikhda kubadda cagta ee adduunyada. Maalmihii u dambeysay, waxaa soo baxay warar sheegaya in Cristiano Ronaldo iyo Georgina Rodriguez ay dhowaan isguursan doonaan, balse maalintaasi waa arki doonaa xilliga ay noqotay rasmiga ah.